kulankani ayaa mid lagu daahfurayay macluumaadka Soomaaliland ugu jira baraha internetka waxaana soo qaban qabisay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga kulankan ayaa ugu horreynba waxaa furay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Professor Yaasin Maxamuud Xiin Faratoon isagoo ka sheekay ahmiyadda iyo sidoo kale munaasabadda loo qabtay kulankan oo barnaamijkan lagu furayo macluumaadka qaranka ugu jira baraha internetka waa mowduuc aad loogu baahnaa runtii oo aan dawladda aad ugu bogaadinayo in fikradda tan la soo jeediyay oo in la hirgeliyo la go'aamiyay waa arrin loo baahan yahay waa arrin qof kasta oo mas'uul ah oo dawladdeena ka tirsanay uu mar walba dhibaatooyinka inaga haysta la kulmayay oo aynaan xog midaysan hayn shirka kan wuxuu ku saabsan yahay inaynu isku baraarujinno isuna tilmaano sidii loo ururin lahaa oo la isugu duburadi lahaa xog midaysan oo dalkeenu leeyahay waa arrin hawl dhammaan aan cid u gaarihin aanay jirin wasaarad u gaarihin ma jirto oo keligeed qabanaysa hawshaas waa hawl cid walba laga rabo wasaarad kasta iyo hay'ad kasta oo dawladdu leedahay laga rabo iyo waliba xogta dhaafsiisan ee looga baahan yahay hay'adaha ama maxaato gaarka loo leeyahay iyo wixii la xiriira waa sidii xogta loo ururin lahaa la isugu dabiridi lahaa mid midaysan loo samayn lahaa oo aynu dhammaanteen maxaato aynu ka wada faa'iidaysano ama aynu dalkeena u sameeyno kulankan ayaa dhammaanba waxa ka soo qayb galay qaybo ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland iyo sidoo kale xubno ka tirsan iyaguna dawladda iyaguna lagu lafaguray siyaabaha internetka ama baraha internetka looga garo karo laguna sixi karo macluumaadka Soomaaliland ugu jira barnaamijkan ayaa silkiisu amaba u daarana taafurka iyo sidoo kale in Soomaaliland macluumaadka ugu jira baraha internetka laga sifeeyo waa Samaal Cabdi Axmed Karile Kalsan TV Hargeysa